waxay fulisaa howlgallo qarsoodi ah waxaanay si dhow ula shaqaysaa hay'adda baadhista dambiyada ee CID iyo laamaha kala duwan ee ciidamada booliska iyo militariga qarankaba. waa Somaliland National Intelligence Agency oo loo soo gaabiyo NIA. laga soo bilaabo 2008 markii qaraxyo laga fuliyay gudaha magaalada Hargeysa halkaas oo khasaare naf iyo maalba ay ku waayeen dadka reer Somaliland. waxa kale oo ay ahayd fariin cad oo cadowga qaranku beesha caalamka ugu muujinayo in aan nabad iyo isku halayn ka jirin gudaha Somaliland. arrinkan ayaa soo dedejiyay in ay fadhiga ka kacdo Somaliland. xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin ayaa xoogga saartay in ay dardar geliso dhaqaale ku filan siiso hay'adda baadhista dambiyada ee CID. hay'addan ayaa xaqiijisay guulo badan oo ay kaga hortagtay qaraxyo iyo qorshayaal la soo maleegay iyadoo ku guuleysatay in aan qarax iyo amni darro mar dambe ka dhicin gudaha Jamhuuriyadda Somaliland. dabayaaqadii sanadkii 2010 waxaa soo ifbaxay loolan adag iyo tartan ay dawladaha caalamku ugu jiraan geeska Afrika. dawladahaas oo inta badan dano isdiidan leh halkaas oo hardan adag ku dhex maray iyagoo la kala safan Somaliland iyo Soomaaliya. madaxweynihii markaa talada hayay ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xaqiiqsaday in ay lama huraan tahay oo awoodda CID kaliya aanay ku filnayn hardankan iyo dhaqaalaha adag ee lagu soo hurinayo in Hargeysa bahal galeen laga dhigo sida ay Muqdisho ku sugan tahay oo kale. dabayaaqadii 2012 madaxweyne Siilaanyo wuxuu qalinka ku duugay mid ka mid ah hay'adaha sirdoon ee ugu awoodda badan geeska Afrika halkaas oo 2013 baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland iyaguna ay ansixiyeen. hay'adda sirdoonka qaranka Somaliland National Intelligence Agency ee loo soo gaabiyo NIA waa hay'adda xumaarka iyo xagaynta waxa ay fulisaa adeegyo sirdoon oo qarsoodi ah. shaqadeedu waa in la aqoonsado oo laga hortago khatarta ku soo waajahan qaranka isla markaana ay xoojiso amniga iyo nabadgelyada qaranka. hay'addan oo xogteeda aad loo dhowray waxay ka howlgashaa sidii loo ilaalin lahaa masaalixda iyo danaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland hadday tahay gudaha iyo hadday tahay dibaddaba.